إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بين سبحانه وتعالى ويديسنا إن وافجيو هذا دمانتين بين أنفعاء في الدنيا والآخرة. وحين كخلدنا ربي بين سبحانه وتعالى كبرينا إن نضاف موضوع أما قضبك وندي إنه يكون صابسنتهاي وما يعين العبد على الانتفاع بشهر رمضان، أما ما يعين المرأة المسلمة على الانتفاع بشهر رمضان. waxaa ku caawin karaa u fududayn kara gabadha muslimadda inay ku intifaacdo bisha ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyey. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu nicmeeyey addoomihiisa muwaxidiinta ee caabuda inuu u yeelay mawaasimu khayraad, wakhtiyo ay ka sahay qaataan iyo kaalmo ay ka shidaal qaataan, ay uga sahay qaataan aakhiro iyagoo hoggaansamaya qaadanayana talada ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey markuu yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa. sahay qaata, wax sahay aakhiraana waxaa u khayr badana taqwa oo alcamalu biddiin. ilaahay subxaana wa tacaala nafaxaadkiisa ayay ka mid tahay wakhtiyada albaabada raxmaddiisa u fura addoomihiisa. rabbi subxaana wa tacaala uu farabadiyo asbaabta dembi dhaafka iyo darajo kordhinta. sidaa ogeed waxaa la gudboon qof kastoo muslima, guud ahaan gaar ahaanna gabadha muslimadda ah, bisha ramadaan ilaahay subxana wa tacaala hayna gaadhsiiyee wixii ku caawin lahaa qofku bisha ramadaan inuu ka faa'iidaysto oo uu ku intifaaco, hadda inuu ku sii dadaalo. waxaanaynu odhan karnaa waa min baabi tahyi'ati nafsi lishahri ramadaan. waa bisha oo qofka muslimka ahi uu diyaarinayo, naftiisu u diyaarinayo bisha ramadaan. arrinka koowaad aynu isxusuusinayno ee qofka muslimka ahi naftiisa ugu diyaarin kara bisha ramadaan, islamarkaana ku caawin kara inuu ka mid noqdo bisha ramadaan kuwa guulaysta ee faa'iida ee ka badbaada khasaaraha dadka qaarkood ku dhaca ramadaan, waa alyaqiin bianna ramadaana fursatun cadiima wa nafxatun min almawla subxaana wa tacaala. qofka muslimkaa waa inuu yaqiinsado oo si dhaba uu u rumeeyo oo qalbigiisa ay u gasho bisha ramadaan horta inay bilaha kale ka duwan tahay, islamarkaana ay tahay fursad aad iyo aad u weyn oo ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey addoomihiisa. haddii dareenka noocaasi qofka qalbigiisa aanu ku jirin, waxaa dhacaysa ramadaan inuu dhayalsado u fududaysto, islamarkaana aanu ka faa'iidaysan. ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo nicmooyinkiisa ay ka mid tahay, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam iyadoo nasaaixdiisa iyo talooyinkiisa fiican iyo khayrka ummadda ula jeclaa ay ka mid tahay, waxaa in badan laynoogu sheegay kitaabka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay leedahay bishan ramadaan. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan. wuxuu ilaahay noo sheegay bisha ramadaan qiimaheeda isagoo inoo muujinaya inay tahay bisha ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey qur'aanka kariimka ee qur'aanka soo degistiisu ay bilaabantay. taas waxay muujinaysaa qiimaha bisha ramadaan ay leedahay. waxay qiimo ka kasbanaysaa in qur'aanka kariimka ah oo ah hadalkii ilaahay barakaysnaa wax walibana ay ku barakoobaan bisha uu soo degay. waxaa kaloo ilaahay uu inoo sheegay subxaana wa tacaala ramadaan inay tahay fursad weyn oo qofku uu ku kobcin karo toosnaantiisa, istiqaamadiisa, alla ka cabsigiisa, khushuucdiisa, iimaankiisa iyo diinku dhaqankiisa. islamarkaana uu ku bedeli karo naftiisa, uu kaga bedeli karo dhaqamada aan wanaagsanayn iyo dabeecadaha iyo akhlaaqaha xun
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي مركو inoo sheegay soomka ramadaan in laynagu faral yeelay waxa rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay xikmadda ku jirta oo ah lacallakum tattaquun, oo macnaheedu uu yahay si aad diinta ugu dhaqantaan ugu toosnaantaan. oo arrin ugu dhiirigelinaysaa oo ina xusuusinaysa qiimaha bishan ay leedahay inay tahay fursa litanmiyati taqwa fi lquluub. waxa kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay bisha ramadaan markay soo gasho albaabada samada in la furo, khayr oo dhammina xagga ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor ugu kaco, albaabada jannadana in la furo. waxaasoo dhan waxaa la muujinayaa fursadda qaaliga ee bishan ku jirta. shayaadiinta in la xidhxidho, gaar ahaan kuwooda madaxa adag ee u taagan hadyo habeen luminta bani aadamka. wuxuu inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ramadaan markay bilato inuu dhawaaqo mid dhawaaqa oo ilaahay amarkiisa ku hadlaaya oo le yaa baaqiya alkhayri aqbil, qofkii khayr doonaya uu soo qaabil, macnaa wakhtigiisi iyo fursaddiisiba taagan. oo yaa baaqiya shari aqsir, shar qofkii doonaya wakhtigani ma aha wakhti lagu khasaariyo shar iyo macsiyo, gaabso. waxaa laynoo sheegay soomka bisha ramadaan waa soom farala, waana soomka u fadliga badan. qofka sooma isagoo waajibnimadiisa rumaysan, soomkiisana ay la socoto niyadaasoo aynu ilaahay ajir kaga doonayo. dad fara badani waxay u soomaanuun inay faralka iska ridaan, laakiin qofka muslimka ahi niyada labaadna waa inaanu ilaabin. niyada labaad oo ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajir kaga doonayo soomkiisa ku ixtisaabayo. man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. qiyaamkiina waa la mid, salaatuleylkii la tukanaya ramadaan, waman qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi. iyadoo rasuulku mar kale uu muujinayo qiimaha wakhtigan uu leeyahay, waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dhab ahaan qofka khasaaroobay guul daraystay inuu yahay qofka bishii ramadaan u soo gashay ee ay baxday iyadoon loo dembi dhaafin. macnaa lamu iman asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaa. ragima anfu imri'in dakhala calayhi shahru ramadaan fakharaja walam yukfar lahu buri nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa dulloobay oo khasaaray qofka ramadaan u soo gashay oo ramadaan ay baxday isagoon la iman waxa ilaahay ugu dembi dhaafay. qiimaha ay ramadaan leedahay iyo fursadaha ilaahay u geliyey nafta aynu u sheegna hadda. qofka muslimkee caqliga lihi hadduu garto qiimaha wakhtigu uu leeyahay iyo fursadaha ilaahay uu geliyey, islamarkaana uu ku jiro dareen ah inay dhici karto inaanay fursaddaasi mar dambe soo marin, wuxuu dadaalkiisa isugu geynayaa siduu uga faa'iidaysan lahaa. waxaa fursadda maanta si fiican u garanaya innaga inala fudud dadkeenna nool, kuwa geeriyooday ee maanta xabaalaha ku jira. haddii la odhan lahaa bal wax qabsada laydiin fuliyo oo ilaahay wax weydiista, waxay weydiisan lahaa in adduunyada dib lagu soo celiyo si ay maalin u soomaan, si hal ragcada ay u tukadaan. taasay jeclaan lahaayeen. adduunyada oo dhan intaasay ka jecel yihin, way waxay garteen camalka saalixa ahi wuxuu sababo ee ah raxmadda ilaahay iyo dembi dhaafkiisa iyo naciimkiisa iyo ka gaabintiisa, gaar ahaan markuu waajib yahay khasaaraha ka dhasha. marka qodobkaa qof waloo muslimowba gabadh kastoo muslimada hoostaa ka xariiqdo oo nafteeda ha u sheegto ana xusuusiso fursadaha waaweyn ee ku jira bisha ramadaan. arrinka labaad ee qofka muslimkaa ku caawin kara, gaar ahaan gabadha muslimadda inay bisha ramadaan ka faa'iidaysato, waa inay nafteeda u sheegto adduunyadu inay daba jeediso ay sii socoto. cadaad sii dhacaysa weeye adduunyadu. cumrigii adduunyada ummadda nebi maxamed intii ka soo gaadha waa in aad u kooban. haddii maalin laga soo qaado sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa casr ilaa maghrib, adduunyada intii kale way tagtay. iyadoo ay sidaa tahay baa haddana qof walo ummaddan ka midana cumrigiisu aad u kooban yihi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi acmaaru ummatii maa bayna 60 ila 70 waqaliilun man yajuuzu dalika. cumriga ummaddaydu waa 6 ilaa 70, dadka dhaafaana aad bay u yaryihin.
arrinka noocaasina waa mid aynu aragno waan inaga qarsoonayn. qofka muslimka ay markuu yaqiinsado inay adduunyadu socoto aakhirana ku soo socoto oo maalin walba dhaafta aakhira ay u dhoweynayso, adduunyadana ay ka sii fogeynayso, qofka muslimka caqliga lihi waxaa dadaalkiisa uu isugu geynayaa, hamigiisa u weynina u noqonayaa taas soo socotee daa'imka oo aakhiraha siduu u sahay qaadanaya. tan baaba'aysa ee go'aysa ee sii dhammaanaysaana ka mashquulin mayso. ilahay baa bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa. maalin walbana waxaynu aragnaa dad adduunyadan ka tegaaya ama waxaynu maqallaa kuwa geeriyooday oo dhintay. in badan ilaahay subxaana watacaala inuu qiyaamo aynu xusuusiyo iyo aakhiro, waxyaabaha xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah in qofka muslimka ay fursadaha soo maraya uu ka faa'iidaysto. wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat wahum laa yudlamuun. arrinka saddexaad ee qofka muslimkaa gaar ahaan gabadha muslimadda ku caawinaya in bisha ramadaan ay ka faa'iidaysato waa alcazimatu saadiqa. intaan hadda ramadaan la gaadhin go'aan fiican waa inay gaadho. qofka muslimka ahi naftiisa intuu la showro gooni uu la baxo waxyaabaha go'aanka u ah ee uu doonayo ramadaan inuu sameeyo, hadda isaga iyo naftiisu waa inay isku waafaqaan oo go'aan waa inuu hadda sii gaadho. alcazimatu saadiqa waa mabda'u alacmaali saalixa, oo halka acmaasha wanaagsan ay ka bilaabanto. haddaanu go'aan ka horrayn camalka fulintiisa, camalkaasi ma fulo oo miduu qofku sameeyo ma noqdo. haddii uu fulana si dhammaystiran uma fulo. walihaada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay weydiisan jiray, uu ka baryi jiray inuu ilaahay ka dhigo mid go'aan u leh inuu waxyaaba wanaagsan sameeyo. wa as'aluka alcazimata cala rushd. ducooyinka rasuulkay ka mid ah sida imaamu axmed wariyey. ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan noqdo qof go'aan u leh waxyaabaha toosan ee wanaagsan ee ilaahay dhoweynaya saacada aakhirada kamaya inaan go'aansado. ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo qof kasta oo muslimaba waxa wanaagsan inuu go'aan u lahaado, laakiin go'aankiisoo qurana inaanu isku hadlayna ilaahay uu weydiisto subxaana watacaala inuu u kaalmeeyo, ilaahayna uu tala saarto. faidaa cazamta fatawakal cala allah. wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku ammaanay rusushii uu soo diray qaarkood, waxaanu ilaahay ku sifeeyey inay go'aan u lahaayeen khayrka samayntiisa iyo fulintiisa, ay ahaayeen kuwo naftooda iyo hawadooda ka adag, oo go'aan kasta iyo wanaag kastoo naftu aanay jeclayn kuwo naftooda kaga adkaaday ahaayeen. fasbir kamaa sabara ululcazmi min arusul walaa tastacjil lahu. marka ilaahay subxaana watacaala yidhi wuxuu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay kuwa jannada dhaxli doona inay yihiin kuwa naftooda ka xog roonaaday ee go'aan wanaagsan iyo talo wanaagsan oo iyagu ay qaateen fuliyey, walow naftoodu haba noqoto mid aan doonahayn ama aan diyaar u ahayn ama ka wahsanayso oo caajisad ka ah. marka ilaahay subxana watacaala amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha annafsa can ilhawaa faina aljannata hiya alma'wa. qofka aakhiro xusuusan waxyaabaha go'aanka fiican qofka ku caawiya iyo doonista naftiisa in wanaagsanayn inuu khilaafo waxaa ka mida qofkii inuu xusuusan yahay is-hortaagga ilaahay subxana watacaala. qofka ilaahay is-hortaaggiisa ka baqa qof walbana ilahay waa la horgeyn doonaa, naftiisana ka reeba waxa ay doonayso ee ilaahay aanu jeclayn. faina aljannata hiya alma'wa. waa maqaam aad iyo aad u sarreeya. marka hadda naftaada go'aan fiican la sii gaadh intaanad gaadhin bisha ramadaan, oo go'aan ku gaadh soom xubnahaagoo dhamme ay soomaan. ilaahay subxana watacaala soomku inaga doonayaa maaha inaynu ka soomnown wixii markii hore xalaasha inoo ahaa. soomka ilahay waa inaga doonayaa. waxaa kaloo ilahay u inaga doonayaa isaguna markii horeba laynaga rabeeyey oo soom mar walba taagana, markay ramadaan soo gashana waajibnimadiisu ay sii adkaanayso inaynu ka soomno wax kastoo ilahay naga xaaraantimeeyey. waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفكان كتجين هذا الكحن هذا الكباد الكاه بأنتي بسوق ليس حنتي عيدي شركي بدعادي هذا الكستوحن إلهي سبحانه وتعالى وح باهية وقضاء مدن وكليها ما جرتو إنه كتجو وحون لا يفعل لها. لكن رسولك عليه الصلاة والسلام شاهد دد صومية والصوم كذا وح كلام كفايدة هين الرادية قاعد وياها. معنا يجوا الصوم بهذا السمينين حيوي لها وديدي كواسيو صاب النقضي أشر كي صوم كاي كهري لهايين إنه كجبتو. وأنا كقال إن بشهر رمضان صلاة الليل تكتو صدق كان مستقال لا تنكا هبين أي كقوم طيبة ولله سبحانه وتعالى ودوات. وأنا كقال إن القرآن كختم توقع ما يسوق. وأنا هاد كسي قال إن أطفر بديسو دعاء إن أطفر بديسو ذكرك حسك إله سبحانه وتعالى الحسن يسوق إن أطفر بديسو صدقة إن أطفر بديسو إن النقطة توقف خير أو دارية أو سوى شيء go'aamada noocaas iyo kuwa la midka ah ayay tahay hadda in la sii gaadho si bisha Ramadaan looga faa'iideysto. waxyaabaha gabadha muslimadda ku caawinaya bisha Ramadaan inay ka faa'iideysato waxaa ka mid ah in nafta la sii nadiifiyo, qalbiga in la nadiifiyo, xubnaha in la nadiifiyo oo laga nadiifiyo raadadka xunxun ee macsiyadu ay ku leedahay. macsiyadu waa wasakh, waa uskag, وأسكت قلبك الضبولة وأسكت حبنها فولة. فإلهي سبحانه وتعالى لي كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون. تطبع قلبي قود واحد ظهاري حمانتي أي سمينية. تطبع واحد قلبي قود إنه حبارك ويسرى ونبيله خيرك الشرك وكلارك وايو حمانتي أي سمينية. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولله سبحانه وتعالى. معاصي وأسكت رسولك شيخ عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كمير قويسيستو حبين كستو ما يرو بيها كداتا دنبيغي حبين تاو كو غلاي انو راعي بس واحد تمامي معاصيدو راد لا تابن كارو وحن اني قفك كغا تagto xubnihiisa. waxa qofka muslimka iyo ka faa'iideysiga fursadaha qaaliga soo maraya kala teede kala dhex gala ee u weyni waa macaasida الذنوب والمعاصي. marka qofka muslimka ay si Ramadaan uga faa'iideysto hadii isagoo macaasi xambaarsan ka toobad keen Ramadaan ay soo gasho wuxuu Ilaahay ku ciqaabaya fursadda noocaas in isagto oo aanu ka faa'iideysan. hadii uu xataa cibaadeysto cibaadadaas mid iimaan u kordhisiya la kacabsi iyo khushuuc iyo toosnaan iyo istiqaamo mid u dhadhanta qalbigiisu macaansado noqon mayso. وإنه قفك مسلم كاهي وحو قلبي سحمان كوغ يهي كسر نظيفيوكا وإنه كحاروي وكفيقه حبني سنة ساسو كالي تاسينو حكوي من إساء رمضان هورتين إن النفط على هورت الحساب السوء ومحاد خلد يدن بكو جرتان أدو حقال بعد ستو ويد سوكت دن بقى كاور استاقا يكفايدي سيقا بيش رمضان يادسكو وقتهاي إلهي سبحانه وتعالى وقد توبت كان قف والله إنك إنك ميدنا توبت دواء باهية قف وران كرانيقو توبت ما باهني أو بريش كانيقو أن كتلابي شرن أنا وان دافي مجل إلهي باري وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قول أردمي يا هرمر يا وناق أردمي توبت إنك حري إلهي بقى أماني وإلي قول استمت المامي الضوامها مرول بالنفتو ذا كان نظيفين حمانتي والصخبة دنبيض إليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبعا واحد قول استي وفق نفتي سكن نظيفية دنبيض هي حمانها هي معاصي ورات كحنا إليه ضاي وحنخص عليك نفتي سا حمانتها نحفريسية حمانتي وكل عي خلط كي وقلي إلهي سبحانه وتعالى وقد توبت كيني وهي marka macaasida aynu ka toobad keeno naftana aynu xisaabino ilaahay baa subxaana watacaala ina amray in nafteena xisaabino mar walba yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. qofka muslimka ahi wuxuu berri qiyaami waa berri geeridii waa berri wuxuu u horumarsaday oo camala waa inuu aad iyo aad u rogrogo wax wanaagsan oo badbaadinaya isagoo wax xun sabab u noqonaya inuu ilaahay u cadhoodo subxaana watacaala kadibna u halaagsano. waxyaabaa ku caawinaya gabadha muslimadda bisha rabada inay ka faa'iidaysto waxaa ka mid a ducada. qofka muslimka waa inuu ilaahay in fara badan weydiisto atawfiiq, waayo awood iyo xeelad ma lihin. aynu la madax bannaan nahay oo aynu khayrka ku samayn karno rabadaanna kaga faa'iidaysan karno. waa inaynu in badan ilaahay caano weydiisano inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ka faa'iidaysiga bisha rabadaan. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inala talinaya wuxuu yihi ixris calaa maa yanfacuka, wixii nafciyo waxtar kuule ku dadaal, wastacin billaah, ilaahayna kaalmayso, yacni utlub ilcawna min allah. ilaahay subxaana watacaala waxaad weydiisataa waxa wanaagsane aad doonaysa inaad samayso ee aad go'aansatay inuu ilaahay kuu fududeeyo rabbi subxaana watacaala kugu caawiyo. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi saxaabigii la odhan jiray mucaad ibnu jabal, yaa mucaad innii uxibuka fillaah, mucaadow ilaahay daraaddii baan kuu jecelay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hadalkaa u horreysiiyey, hadalkaa tilmaamaya inuu mucaad jecel yahay o ilaahay daraaddii u jecel yahay, talada uu siinayo qiimaheeda si uu mucaad u dareemo. falaa tadacanna an taquula dubura kulli salaa allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika. ha ka tegin salaad kasta dabadeed inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika, ilaahay waxaad igu caawisaa ood igu kaalmaysaa xuskaaga, wa shukrika iyo mahadnaqaaga, wa xusni cibaadatika iyo cibaado wanaaggaaga. dikrigu waa diintii oo dhan, camal kastoo wanaagsan oo qofku uu sameeyana waa shukri. xusnu lcibaadana waa darajatu lixsaan inuu qofku gaadho oo ilaahay u caabudo subxaana watacaala siduu arkayo kale. hadduu darajada hoos uga dhacana inuu ilaahay caabudo subxaana watacaala isagoo mar walba dareensan oo qalbigiisa ay ku jirto inuu ilaahay subxaana watacaala uu daalacanayo. marka ducadana ha lagu dadaalo bisha rabadaan ilaahay subxaana watacaala inuu ina gaadhsiiyo islamarkaana uu ina waafajiyo bisha ka ghaniimaysigeeda iyo inaynu kuwa ka faa'iidaysta ee guulaysta aynu ka mid noqonno. ilaahina subxaana watacaala taa haynoo fududeeyo. arrimaha gabadha muslimadda ku caawinaya bisha rabadaan inay ka faa'iidaysato waxaa ka mid a in gabadha muslimadda ahi ay samaysato jadwal alcamal fii ayaami wa layaali ramadaan, maalmaha iyo habeenada ramadaan. maxaa kuu qorshaysan? haddii ramadaan bilaa qorshe ay kugu soo gasho waxa laga yaaba khayr fara badan inuu ku seego. salaadaha faralka iyagu waa geedka go'an, mar walba faral bay nagu yihiin. ramadaan markay soo gashana waa waqti fadli badan oo fadligoodu uu sii badanaya. salaadaha ilaalintooda in waqtiga u horeeya u fadliga badan inay tukato, inay qalbi soo jeeda oo khushuucsan ay ku tukato, salaad walba inay tukato iyadoo ay xisaabta ugu jirta inay noqon karto salaadda u dambaysa. salaadda u dambaysa ee salaad kale uga dambaysaa aanay jirin. in salaadda ay iska saxdo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u tukan jiray ay akhrido amabase ay dhegaysato oo salaad cilmi ku dhisan ilaahay subxaana watacaala ay u tukato. soomkeedu inuu noqdo soom dhammaystiran oo wax kastoo laga xaaraantimeeyey maalinka ramadaan ay ka soomayso. wa siyaamu aljawaarix, qalbigu inuu soomaa loo baahanyey, wuxuuna inuu go'aansado inuu ka soomo. indhuhu xaaraan eegan waa inay ka soomaan, carabku inuu xumaan ku hadlo waa inuu ka soomo, dheguhu in xaaraan lagu dhegaysto waa inay ka soomaan, gacmuhu xaaraanta lagu taabto ama lagu qabto waa inay ka soomaan, luguhu waa inay ka soomaan inay xaaraan meel xun ay u socdaan oo u tagaan. xubnahoo dhan waa in la soomsiiyo. soomkana waa in loo dadaalo oo ixtiyaad loo sameeyo iyo dadaal dheeraad ah. qur-aanka kariimkaa jadwalkaaga waa inay ku jirto inaad qur-aanka kariimkaa aad akhrido. xataa haddaanad hore u aqoon isku day bisha ramadaan qur-aan intaad baran karta inaad barato, waanaad baran kartaa dhab ahaan. ilaahina subxaana watacaala hadduu xataa kugu adag yahay ajar baad kaga helaysaa oo ajrul ijtihaada, ajarkii dadaalka. ducada aad u farabada bisha ramadaan qofka sooman wuxuu ku jira xaaladaha ducada ilaahay u aqbalo
mid ka mid ah maalinta ramadaan oo dhan ayaa ducada qofka soomali mustajaab ay tahay xadiidka sida gaarka u tilmaamaya marka qofku uu afuri waqtiga afurka la gaadho isagoo xadiid daciifa u yihi waqtiga afurka iyo waqtiyada kaloo dhan waa isku mid waqti walba ku dadaal gaar ahaan waqtiyada sida gaarka loo sheegay uu ka mid yahay thuluthu leyl alakhiir habeenka 3 meelood marka loo dhigo meesha u dambaysa ilaahay uu leeyahay yaa i baryana jiibaya i weydiisanayaan siiyaa yaa dembi dhaaf rabo oo dembi dhaafa oo fursad aad iyo aad qaali u ah bisha ramadaan go'aamada iyo jadwalka fiican ka mid noqoto inaad sadaqad la baxdo hana yaraysanin waxaad sadaqadaysanayso waxaa laga yaabaa in yari inay wax badan tarto in yar oo aad loogu baahan yahay in lagugu dembi dhaafo ikhlaaskana ku dadaal acmaashaada oo dhan in camalkaaga oo dham ilaahay subxana watacaala daraadduuna dikriga aad u farabadi bisha ramadaan dhexdeeda xuska ilaahay subxana watacaala carabkaagana bar ikhlaaskoo ka mid ah acmaasha quluubta acmaasha oo dhanna asal u ah aad ugu dadaal man saama ramadaana iimaan waxtisaaman soomkaagu ha noqdo mid iimaan iyo ikhlaas iyo inaad ilaahan ajir kaga doonayso mid u dhacaya saasoo kale acmaasha kale saalixa bisha ramadaan aad samaynayso waxaan ku gebagabaynayaa dumarka muslimaadkaa bisha ramadaan marka laga yimaado cibaadaadka ay naftooda u samaynayaan shaqooyin kaloo badan bay qabtaan waqti badan madbakha ayay ku qaataan waxaan idinkula talinayaa madbakha inaad ka dhigtaan mixraab madbakha laftiisa mixraab yacnaa makaanu cibaada meelaad ilaahay subxana watacaala ku caabudaysaan waxaana taa suurto gelinaya marka koowaad dad sooman baad u shaqaynaysaan aad u khidmaynaysaan in arrinta noocaasi aad cibaado u niyeysataan iyo ilaahay subxana watacaala inaad ugu dhowaataan oo aan idinka noqono inaad gurigiinni aad ka shaqaynaysaan oo niyada fiicani shayga mubaaxa ah cibaada ayay u beddeshaa oo ay ka dhigtaa waxaa kaloo goob cibaado madbakh uu ku noqon karaa gabadha muslimadda ahi intaa ay madbakha ku jirto inay kitaabka ilaah akhriyaysa iyadoo hawsheeda wadata inay ilaahay subxana watacaala xusayso inay mar dhegaysanayso qur'aan mar muxaadaraad inta ay hawsha hayso oo dhan inay cibaadada u fududee iyada iyo hawshaa mar la wada qaban karo inay aad iyo aad ugu dadaasho oo madbakhu aanu noqon mid iyadoo la aamusan yahay in lagu jiro ama hadal iyo sheeko kale un la wado waktiga faraha badan ee dumarkeena madbakha ay ku qaataan khayr fara badan ayay kaga faa'iidaysan karaan ilaahay subxana watacaala xuskiisa oo qur-aanku u fadli badan yahayna waxyaabaha xataa camalka fududeeya ayuu ka mid yahay markii faatima radiallahu canha oo inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka cabatay inay shaqadii ku badatay islamarkaana cid u shaqaysaanay haysan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray iyada iyo caliba markay gogashooda tagaan habeenkii firaashkooda tagaan ay hurdo u diyaargaroobaan inay 3 jeer yidhahdaan subxaana allah 3 alxamdu lilah 4 allahu akbar arrintaasaa qof idiin shaqeeya idinka khayr badan buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay haddaad kaga baqato madbaqa dhexdiisa ood ilaahay ku caabuddo arrimahoo dhan ilaahay baa kuu fudaynaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa ilaahay baynu subxana watacaala weydiisanaynaa inuu ramadaan inuu gaadhsiiyo iimaan islaamnimo iyo caafimaad qab kuwa ka faa'iidaystana ilaahay inuu naga dhigo taana ina waafajiyo rabbi subxana watacaala dhammaanteen haynoo dembi dhaafo kuwa xanuunsanaya ilaahay inoo caafiyo kuwa dhintay ee muslimiintaana ilaahay subxana watacaala u naxariisto صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا